بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer ahla dikr dhammaantiin waan idin salaam meel kastoo dunida uga nooshiin waxaad ilaa jimco wanaagsan ilaahay subxaana watacaala boqorkaa idin barakeeyo inta walaaloo xanuunsan allah caafiyo waxaan arkay commentiga dhowr qof oo kusoo dhehayso waa xanuunsan ha laysoo duceeyo caafimaad sareecana oo dhiigga idin marka kuu gala allah ku siiyo walaalka xanuunsano intii walaalo caafimaad qabtan caafimaadkooda allah u zaa'idiyo intii dhib iyo murug iyo wax ka tabanaysana ilaahay subxaana watacaala boqorkaa ha ka caafiyo بعد سلام جمعة وناكسن برنامج كيني أحلى قصصنا ما توحي قصيصة إن بدو نبسيقة كودا القصة وحي تراباي فلسن وحي صودونتي ويل وين وأني حوغا إيقا وين العقله لقاله هستو ويلكي وحي تروالي قدري waxay dhahday macnaha ma ahayn dad oo aad iskugu xeel dheer waa aragtay markii la isguursado dadka saaxiib ay noqdaan kaftan fara badan farxad iyo ciyaar farka ciyaar waxaas oo dhan ka dhaco macnaha waxay dhahday waxaas aniga ma jirin laakiin waxaan ahayn laba qof oo iskugu imaado kaliya sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka ahay macnaha xirxiran wadaadkeeda ayad gabadha iska furfurantaa waxay dhahday tayda waan kasoo baxaayay guriga hadday tahay nadaafadooda cuntada wax walba everteen hadday tahay wixii aniga waajib la iigu lahay waxay dhahday ninkii markuu 2 sano i qabay uu hal mar faja'an wuxuu ugu yiri soo dhaqaq oo ku furaya maxaa dhahday naxtin aniga waxaan ku baleenkeyga iigu jira maba ahayn qofku moogtahay baleen A baleen P uu qaba moogta waxa oo hadda schedule-kiisa ahayst waxa oo feature-ka schedule ka raadinaysa maba ku fikiraynin gabadhaan horaa laga furay gabadhi naxtin sadmo gabadha sirri ku arurtay way naxda way oyse ehelkeedii waxay dhaheen gabadhiina maxaa ku furtay gabadhi waxay taagantaa muxuu ugu furay ani hadda wuxuu igu furay ii sheego waa qancaya laakiin waa ku furay wax ka naxay xaqiiqatan dhah gabadhi naxtinta ay ka qaada sirri la karto ninkii wuxuu yiri waxaan ku furay gabadha oo u furay familka ku soo leeyahay ma dhalayso gabar yar waaye ilmo yar aad uga weyntaa guriga hadda kugu jira 2 sano hadeertaan waaye maxaa qaldan waxaasaa nimayo soo batay moogtihiin wallaahi bilaahi waan yaabanahay dadkii xataa labada isjecel xataa la isku diraa iskaba dhaaf qof dantiis u soo furay gabadhi marka sida markay dhacday waxaa dhacday waxay tiri maba sii daahin ilaahayaan barye ninkaas wuu iga naxiyey ilaahu ii gargaar gabadhi guur aan ka soo daahin oo taamki cudada inuu dhamaanaysa u malays inay sugayeen daf mid duca qabo oo ilmaheedu wato ilmihii gabadhaas laga abuuray wato ayridu soo qaraa gabadhi saas markii loogu daray sanadka ugu horeeyay uu reeb leedahay dhag way dhash sanadka xiga dhag way dhash waxa maqla jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka hadduu khayr kula doono waad helaysaa وإذا أراد شيء أن يقول له هي كن فيكون إلهي أرن هدو يراهدو نقوه ونقنايا إلهي قبردان فرقال هني كان وفر كاسنا وحالي ردونو المها قال كاسي كجراني وكاس وحين قتي وعسى أن يكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن يحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم ما تعلمون لا تعلمون مركا waxaa jirto moogta aad nacaysid oo aad rabin waxaas markay kugu dhacayaan laakiin qeyr kuugu jiro iyo waxaa jira moogta wax shar kuugu jirto anyway gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaado ku israaqay sooj nadiif ku israaqay farxad iyo reereen ninkiina waxay tir weli ma guursanin sidii uu soo taagan yahay shoogo midhaqaad gabadhina awlaad degdeg ah oo 2 sano oo hadda markii la furay ahay دق إلهي سيو إلهي هرتها وزائديو والكسن قلبك أسجن الله وقبوجي أولاد هلاس وكل أولادنا الله سيو تبعت حمضنا الله كقاضي anyway وحواي نفسي كان هلسك إلى يا أحبابي نفسي الشيء حواي شيء عجيب أهواي ولقى الله قف إنا ظلم ستها اسكو دينينا ظلمك واشي عجيب والله بالله ظلمك كلية حتى لسكم الظلميو إن ما ركتاي إن كلية اللي وحساس أسي واوين حتى قفك إنا أفارها أفكاغ أو كنبت قلو أو لغها أو كنبت قلو أو قعمها هذا آذو كدبين إنده هذا آذو كدبين على لوباهية
laakiin qofaan waxba xeerinayn haddaan noqotid oo ilaahay ka cabsanaynin waxaa rabta aad dhabaqsatid aadna jab dheexaa iyo maaragtay ilaahay kaa jaro aad maaragta u fadhinay wallaahi